صافي رمضان مبارك كولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن هابي رمضان. subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan qaraab iyo aqsaabba ku soo dhawaada Kawawa Food Channel. maanta waxaan rabaa in aan noo diyaariyo horeyna uma aan samaynin inta aad u jeclaan doontaan. halkan digsigan waa eber bad suugada ayaan ku diyaarsanayaa. waxaan rabaa in aan ku shubo qaadadaas. waxay u dhigantaa horta qaadada aan bariiska ku cunno waa 1 tablespoon. marka 3 xabo oo qaadadan ah ayaan waxaan ku shubayaa digsiga. oolyada aan isticmaalayana waa extra virgin olive oil. marka waa 3 tablespoon. koow labo saddex isla soconaya umaleynaya. waxaana rajaynayaa inaad jeclaan doontaan. marka hadda waxaan ku shubanayaa sidaan horay amba mar kastaba aan u samayn jiray. halkan waxaa iigu jiro carfiskeygii ii shiidnaa. mar kasta aniga waxaan sameeyaa waan isku shiitaa. qaarna freezerka ayaan gashtaa wiiga ugu horeeya amba 4 beriyo ugu horeysa mid baan talaagada qaybta kore aan gashtaa. waxayna ka kooban tahay waa tuun, waa basal, waa joy reexaan, waa basile, waa ilaaha dukuriyaan oregano oo fresh ah. waxaa ku jiro barbarooni, waxaa ku jiro ilaaha hadduu raalli ka noqdo seedana. marka waan isku wada shiitaa wax badan. cagadahan ayaan ku shubtaa freezerka ayaan geliyaa. laakiin wiiga ugu horeeya kaan isticmaali lahaa talaagada qaybteeda kore ayaan iska gashtaa. marka waxaan ku ridanayaa 2 qaado. mar alla markay isku hilmato ayaan tamaadka aan ku darsanayaa. marka hadda waxaan ku shubanayaa waa Italian sauce tomato lagu sameeyo. labadaas ayaan ku shubayaa waa 700 oo gram. yar ku soo qasayaa. hadda waxaan ku darayaa wax yar oo maaji ah. markana waan iska gaabinayaa. 3 ayaan ka dhigayaa dabka. maajida aan isticmaalayana waa midaas digaaga ku sawiran yahay. maajida marka waxaan ku darayaa qiyaastaas ah 1 teaspoon. waxaan kaloo ku darayaa cusbo qiyaasta qaadadaas ah oo ah 1 xariiqin 2 teaspoon. isla soconaya umaleynayaa. hadhowti markay diyaar noqoto suugada aan ka dejin rabo ayaan cagaarkaas aan mindida ku yaryareeya ku darayaa. waa basil iyo parsley. soo hadda dabkeena waa noo gaaban yahay.
suugada ha noo sii karto. suugada markay diyaar noo noqoto waxaan saarayaa spinach aan rabo habkaan u samaysanayana in aan idinla socodsiiyo. waan isku soo laabaneynaa. qaraabiya xisaabba suugadeennii waa inoo diyaar. marka hadda waxaan rabaa in aan ku daro wax yar oo ah basil iyo basile. waa kaasa wax yar horaana ka daminayaa mar alla markaan ku shubo, sababtoo ah waxaan rabaa in uu ka dhex muuqdo. asaga ayaa isku uuri doona ilaah hadduu raalli ka noqdo. marka hadda waxaan saaranaynaa insha allah spinachkeeni. suugada waa inoo diyaar. marka hadda waxaan saaranaynaa spinach saan idiin sheegayba. so waxaan ku shubayaa dabka aan shidto horta. waxaan ku shubayaa olive oil extra virgin. oo ah qiyaastii 2 tablespoon oo ah qaadada bariiska aan ku cunno ayay u dhigantaa saan hore idinkugu sheegay. hadda waxaan ku shubayaa oo kale carfiskeennii inoo shidnaa oo isagana ah 1 tablespoon qaadada bariiska aan ku cunno waayo macnaheedii. intaas ayaan isku walaaqayaa. kadibna spinachka ayaan ku shubanaynaa. mar alla markuu isku carfo ayaan spinachka hadda ku shubanaynaa insha allah. spinachka waa 1 bac iyo bar. hashi bac 450 gram waaye. dabkana in yar waa gaabina 4 ka dhiganayaa. biyana kuma daraayo sababtoo ah spinachka asaga ayaa biyaha dhalaaya sidaan la wada soconno. waan dhaqay si fiican ayaan u dhaqay. so intaan horta ha isku yaro degto. markaas ayaan qaybta kalena ku kala shubayaa sababtoo ah ima deeqaayo haddii kale. marka hadda waxaan ku shubayaa 1 teaspoon oo salt ah. waan isku daboolayaa. markuu isku dhex dhaco ayaan qaybta kalena ku darayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. wada socod wanaagsan. qaraabiya xisaabba waad u jeedin spinachki waa inoo diyaar. waxaa la rabaa biyaha dhan inuu sidaas uga dhammaado. hadda waxaan in yar oo waxaan ku darayaa black pepper ah oo taste yar un baan ka rabaa. lagama badinaayo. waa u jeedin testigaas un baan ka rabaa. marka already waa diyaar. hadda waan dejinayaa. kadib waxaan rabaa in aan idinla wadaago habka aan u diyaariyey chicken filetka. spinachkana waxaa la rabaa biyaha dhan in uu ka dhammaado. waa dijeedin dry waaye. hadda uu diyaar u yahay inaan chickenka ku duubo. so intuu noo sii qaboobayo habkaan u diyaariyey ayaan idin tusayaa amba aan u diyaarin doono chicken filetka.
marka hadda waxaan rabaa inaan idin tuso chickenka habkaan u sameeyey. intaas horta waan diyaariyey. sababtaan u diyaariyeyna waxay tahay ma rabo inaan waqtigiina qaaliga ah aan dhumiyo. marka xabadaas ayaan reebay habkaan u sameeyey. marka xabadaas ayaan idinka tusayaa. saad la socotiin waxaa ku jiro seedaas cad. seeda cad waxaan ku jaraynaa mindi baan dhag ku siineynaa. haddaan sababta loo jaraayo seedaasna waxay tahay markaan aan ku guro waxaan ugu talagalay oon duubo markaan shiilaayo way isku soo ururaysaa. chickenka inuu isku soo ururo lama rabo. seedaas haddaadan jarin chickenka dhan wuu isku soo ururayaa. marka seeda unbaad jaraysaa, hal si yar baad u jaraysaa, maaha chickenka dhan inaad dilaacisid. seedkaas unbaad jaraysaa saan isla soconno. marka waxaan ku garaacayaa qorigaan loogu talagalay steakiga in lagu garaaco. xoogna uma garaacaysid, wuxuu u baahan yahay oo keliya si tartiib ah. marka hadda waxaan sameynayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan marinayaa cusbo iyo filfil. wax yaroo cusbo ah oon badneen unbaan korka saas looga dhahayaa. sababta ah feta ostiga cusbuu leeyahay. isbinaajkana baad ogeedeen cusbo ayaan ku sameeyey. marka filfil yaraan dhag ku siinayaa oon badneen. haddana dhinaca kale aan u rogaayaa sidii oo kale cusbo yaraan dhag ku siinayaa. kadibna waxaan marinayaa filfishii ayaan iyar korka kaga shubayaa oon badneen. testigaas unbaa laga rabaa. waan isla soconaya umaleynayaa. marka hadda waxaan sameynayaa ilaa hadduu raalli ka noqdo waxaan gelinayaa wax alla wixii aan ugu talagalay ee diyaarka ii ah. waan isla soconaya umaleynayaa. so halkan waxaa diyaar iigu ah waa Greek feta, waa farmaajada ansalaatada loogu talagalay, waa feta ost amba hadba saa u taqaanid. baakadka dhan ayaan isticmaalay, waa 200 oo gram. sidaas ayaad u yaryaraysanaysaa. halkan waxaa iigu jira walnutskaas oo aan makiinada wax yar jarrag ku siiyey oon aada loo shiidin. inta waxaa iigu jiro basal iyo pasle. halkan waxaa diyaar iigu ah mozzarella, waa bacdii oo dhan oo 250 gram ah, iyo grana padano, waa parmesan kii shiidnaa ee baastada loogu talagalay. soo hadda shaqadeenni ayaa inoo bilaabanayso hadduu ilaahay raalli ka noqdo. kan ayaan ka bilaabeynaa. koo waxaan sameynayaa waxaan ku shubayaa xoogaa ah isbinaajkii aan dallacanay aada ogeedeen habkaan u sameeyey. kadib waxaan saareynaa farmaajada. kadib waxaan kor kaga shubayaa walnutskii aan hadda idin tusay. sidaas ayaa la rabaa inuu ku soo baxo. halkaanna waxaa diyaar iigu ah stakin amba stutika dente saabda sidaad u taqaanaa. marka hadda waan duubayaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. waa ujeediin
si uusan u kala go-in amba u kala furmin istuutiga deenti carabkaygaaba culus bayaa badana istuutiga deentiga ayaad ku celinaysaa si uusan u kala furmin ayaa loo sameynayaa taasna 3-4 hadba intaad rabtid si ay isugu kaa qabsanto uusan u kala furmin sababtoo ah waa la shiilayaa lama rabo inuu kala furmo sidaas ayaa la rabaa inuu isku haysto kadib burkan ayaa lagu gedgedinayaa waa isla soconayaa u maleynayaa markaas ayaan dhiganaynaa hadda midkii kale ayaan qaadanayaa sida socod wanaagsan sidoo kale ayaan sameynayaa haddana waxaan saarayaa spinach ujeediin soo hadda waxaan saarayaa feta ost kadib waxaan saarayaa walnutskii noo shiidnaa hadda waa duubayaa marka soo hadda waxaan ku celinayaa istakiinka amba istuutiga deenta hadba sidaad u taqaanid ilaa uu isaga kaa qabsado waa in aad ku celin waxaa loogu dhejinayaa istakiinka si uusan u furfurmin hadhowna waa ka bixinaynaa markaas ayaan dhiganaynaa waad fahanteena u maleynaa mid kasta sidaas ayaan u sameynaynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo waan isku soo laabanaynaa markaan wada diyaarsado qaraabi axsaabka waa kaa chickenkii waan wada duubay waan gudaha waan ka geliyey wax alla wixii aan ugu talagalay horeyna idiin tusay marka horta intaanan foornada gelin waa inaan shiilaa saliidda aan isticmaalayna waa vegetable oil so intay saliiddu inoo sii kululaanayso waxaan rabaa in aan kusii shubo badeelaha xoogaa suuga ah si uusan hoos ugu dhegin maleynayaa inay noo kululaatay sababta burka loo marinaayana waxaa la rabaa korokanta camal inay noqoto wax yar un baa la rabaa in gold color guduud yar laga dhigo maaha inaan si fiican u shiilaayo sababtoo ah foorno ayay gelaysaa soo hadda waxaan kor kaga shubayaa badeelaha aan rabo inaan foornada ku geliyo xoogaa yar oo barmasaana ah ayaan kor kaga shubayaa
waan gaduudinaa kalarka goldiga camal inuu noqdo baan ka rabaa. Foornadana waan sii shidanaynaa kor iyo hoos iyo ilaa hadduu raalli ka noqdo 250. Brown camal gold color markuu noqdo intaan ku safayaa suugaan kor ka saarayaa mozzarella iyo wax yar oo parmesan aan korka kaga shubayaa taste macaan sidoo noogu yeesho. Foornadeeni way noo shidan tahay waa 200 iyo hoos oo 250 ah. marka inaaf waayo hadda waan ka saarayaa badeelaha ayaan ku safaynaa. sidaas ayaa la rabaa inuu xoogaa yar brownkaas uu noqdo. inoo diyaar waan ka saarayaa hadda qaybtan kalena dabka ma iska diminayay sababtoo ah waxaan rabaa inaan saarto baastada hadda marka suugadii ayaan korka ka saarayaa waa isla soconayaa umaleynaya waxaan kaloo korka ka saarayaa xoogaa mozzarella iyo xoogaa farmaajo ah waxaan kaloo ugu dambeyntii korka aan ka saarayaa xoogaa basilik ah oon decoration ahaan le aan ka rabo soo hadda foornadii ayaan qishanaynaa rabia xisaabba sidaas ayuu ku soo baxay marka hadda foornada un baan gelinaynaa
20 ilaa 25 daqiiqo ayuu ku jirayaa. Foornada waa kor iyo hoos. Waxaan ka dhigay 250 degree centigrade. waan isku soo laabaneynaa. halkaana waxaa inoogu saaran baastadeeni. baastada aan inoo karin doono waa baasta talyaani ah, waa penne rigate. muskiladaas ayaa nagu filan annaga. waan isku soo laaban doonaa qaraabo iyo axsaabba. qaraabo iyo axsaabba baastadeeni waa inoo diyaar. marka hadda waan miirayaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. lama rabo inay aad u jilcdo, alla deenti ayadoo ah ayaa laga dejinayaa. waxaan rajaynayaa inaad jeclaan doontaan. waa cunto aad u macaan badan. digaaggeenina waa inoo diyaar. hadda ayaan soo saari doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. marka waxaan sameynayaa suugadeennii inoo tiigay ayaan rabaa in aan ku dhex qaso baastada. kamerada ayaa xagga inoo geynayaa. raalli iga noqda. bad horta waa inaan chicken-ki kala baxaa. sorry. baastada maaha inay jilicdo. baastada waa inay alla deenti ahaataa. hadday jilicdo dhadhan fiican makuu yeelanaysa baastada weligaa. baastada waa inoo diyaar. marka hadda waxaan soo saarayaa chicken-keennii aada ogeedeen habkaan u sameeyey. hadduu ilaahay raalli ka noqdo. chicken-keenni waa inoo diyaar. sidaas ayuu ku soo baxay. waad la socotiin sida quruxda badan leh. brown goldigaasaa la rabaa inuu noqdo. nalkaan noo shidaayaa. waan iloobi raalli iga noqda. sidaas ayaa la rabaa chicken-ka inuu ku soo baxo. waa inoo diyaar. waa ujeedaa gold markuu noqdo waad ka degsanaysaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. soo hadda waan guranaynaa. waa cunto aad u macaan badan. waqti la geliyey, concentration badanna aan siiyey. cuntaba cuntaday ka deganaan aad ku samaysid way ka macaan tahay sida aan la wada soconno. soo hadda chicken-keennii ayaan saaranaynaa. hana sidaas ayuu ku soo baxay. wax yaroo barmasaan ayaan korka ka saarayaa. sidaas ayuu u qurux badan yahay. aad iyo aad ayuu u macaan yahay. waa cunto delicious ah. teeda kale maaha inaan ilowno istuutika deentiga amba istakiinkii aan gelinay in aan ka saarno markiiba. kamerada ayaan xagga inoo geynayaa idinkoo raalli iga ah.
marka waxaan ka saarayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo istakiinkii aan gudaha aan ka geliyey. istakiinka sababta loo gelinayana waa in uu aysan kala furmin digaaga ama doorada hadba sidaa u taqaanaan. qaraab iyo axsaabba kusoo dhawaada Kawawa Food Channel oo maanta idin diyaariyey cuntadaas aad u macaan badan. marka gudaha ayaan ka jarayaa si aan u aragno sida uu ku soo baxay gudihiisa. waa kasaa gudaha waxaa kaga jira spinach, feta oast, walnut iyo spinach waan idin sheegay, walnut, spinach iyo feta oast. so kusoo dhawaada qaraab iyo axsaabba adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan. waxaan idin leeyahay ku waara caafimaad, cimri dheer, cibaado suuban. like-ga, commentiga, subscribe-ka, sheerkana waa xaggiina haddii aad ka heshay cuntadaanayto aadka u macaanka badan. soo dhawaada bon appetito. bismillah. إنه بعادي ما هو والله.